رزقك لا يتأخر رزقك ولغا كاما سو دب دحايو ولا ينتزع لغامana qaadayo ولا يضيع mana kaalumayo ما كتب لك سيصلك wixii lagu qoray way ku soo gaarayaan وما لم يكتب لن تبلغه ولو اجتهدت wixii aan lagu qorinna weligaa kuma soo gaarayaan si kasta oo aad u dadaasho كم من باب طرقته وأغلق meeqa albaab oo kaa xirnaa ayaad garaacday كم من فرصة سعيت لها بكل ما تملك ثم لم تكتب لك meeqa fursadood ayaad daba gashay intii aad awooday iyadoo aan lagu qorin وفي لحظة لا تخطر على بالك جاءك رزقك من حيث لا تحتسب dabadeed waqti aadan filayn ay irsaaqdaadu ka timid meel aadan filayn رزقك لا يتبع الأشخاص ولا الظروف irsaaqdaadu ma raacdo dadka ama duruufaha ليس مرتبطا بمدير يوافق kuma xirna ogolaanshaha maamulaha أو سوق يتحرك dhaqdhaqaaqa suuqa أو علاقة تستمر ama xiriir waara رزقك مقدر risaqaagu waa mid la qadaray محسوب la tiriyey محفوظ باسمك oo magacaaga lagu kaydiyey قد يسبقك غيرك ظاهريا qof kale ayaa laga yaabaa inuu kaa horeeyo لكن ما هو لك لا يأخذه أحد laakiin waxa adiga kuu qoran cidna kaama qaadi karto لا تظن أن التأخير حرمان ha u malayn in dib u dhacu yahay ka hortagga irsaaqdaada ولا أن الفقدان خسارة ama luminta irsaaqdu ay tahay guuldarro كل ما لم يحدث إما ليس وقته أو ليس لك wax kasta oo aan dhicin waqtigiisii ma aha ama si fudud adiga ayaan lagu qorin ثق أن السعي مطلوب ku kalsoonow in dadaalku waajib yahay لكن القلق لا يزيد رزقا laakiin walwalku risaqa ma kordhiyo والحسد لا يختصر الطريق xaasidnimaduna jidka ma xirto اطمئن ما قدر لك لن يخطئك naso oo hubi wixii kuu qornaa weligood kuma seegi doonaan wax kasta oo ilaahay uu kuu qoray subxaanahu wa tacaala ma jirto cid ku gafsiin karta laakiin adiga keliya waxaad haysataa laba doorasho labadaas doorasho oo kala ah in aad si wanaagsan ku raadiso ama inaad si xun ku raadiso bixinta wixii aad cuni lahayd meeshii aad ku hoyan lahayd xaaskii aad guursan lahayd ama zawjkii aad guursan lahayd bixintooda aduu shaqo kuma lihid laakiin adiga raadintooda ayaa lagu amray oo aad si wanaagsan ku raadiso dad badan oo waxaa jira isbaara waddada dhigtay kuwa badan oo waxaa jira been iyo khiyaano wax ku raadiya kuwa kale oo waxaa jira ribo iyo beec xaaraan ah hanti ku abuura waxaas oo dhan waa waddada xun ee aad adigu rabto inaad ku gaarto irsaaqad uu ilaahay kuugu talagalay in aad si wanaagsan ku raadiso ballanteennu waa in wax kasta oo kaa maqan oo aad raadinayso aad ogaato marka hore horta in ay ku jiraan gacanta ilaahay subxaanahu wa tacaala kadibna in aad go'aansato in aadan gacanta ilaahay si fool xun oo xaaraan ah aadan wax uga raadin